quraanka ilaahay wuxuu ka warramay niman reer banu israa'iil la yiraahdo yahuud reer banu israa'iil waa mujtamacyada ugu badan ee ilaahay kitaabkiisu taariikhdooda ka warramay taariikhda reer banu israa'iil xumo iyo samaba way leedahay reer banu israa'iil nabiya ka dhashay nabiya badan oo quraanku ka tilmaamayo ta israa'iil waa nabi yacquub inankiisiyo maxay ah nabi yuusuf walaaladii wayna culimadu badleeyeen nabiye markii dambe noqdeen anbiya badan nabi sulaymaan nabi huud maaha sulaymaan abihi daawuud nabiyullaahi muusa anbiya badan oo reer banu israa'iil oo dad saalixiina quraanka ka warramaya bal ilaahay wuxuu ku tilmaamayaa inay ka mid wajacalnaa minhum a'immatan yahduuna biamrina lama sabaruu wa kaanuu biaayaatina yuuqinuun reer banu israa'iil waxaa ka mid ah a'imma dad lagu daydo oo diinta ilaahay ku dhegay markii ay ku sabreen inay waxooda xajistaan yaqiintooduna ay rasmi ahayd yani laba midnama gelin waxaan ay diinta haysteenna way rumaysanaayeen way yaqiinsanaayeen second to that obstacleski ka hor yimid dhibaatadii ka hor timina umay leecin umay dabcin labadaas shay markay isla heleen baa ilaahay leeyahay ayay waxay u noqdeen bini aadamka tusaale kuwaasi reer banu israa'iil bay ka mid ahay waxaa kaloo ilaahay quraanka inooga warramaya group kalena inuu reer banu israa'iil ka mid yahay bal groupka kale aan eegna waxa ilaahay ku sifeeyey marka hore ilaahay wuxuu yidhi waqatacnaahum fi lardi umama reer banu israa'iil waa googoynay baa ilaahay yidhi dhulkaa lagu faafiyey minhum asaalixuuna wa minhum duuna dalik kuwa suuban iyo kuwa xunba way lahaayeen baa ilaahay leeyahy wabalownaahum bilxasanaati wasayi'aati lacallahum yarjicuun dhibaatooyin iyo wanaagba waa ku itixaamnay bal inay soo noqdaan ilaahay wuxuu sheegay markaa kuwa kuwii kaga dambeeyey waa kuwii lumay fakhalafa min bacdihim khalfun warithuu lkitaaba ya'khuduuna carada hada aladna wayaquuluuna sayukfaru lana wain yaatihim caradun mithluhu ya'khuduuh alam yu'khad calayhim miithaaqu lkitaabi an laa yaquluu cala allahi ila alxaq wadarasuu ma fiih waddaaru alaakhiratu khayru liladiina yattaquuna afalaa tacqiluun ilahay wuxuu yihi kuwa gadaashood waxaa maray qoladan maxaa u calaamada marka hore kitaabka way dhaxleen dadkii challengeska soo maray adkaa maaha waa dad dhaxlay waa sideenoo kale inagu islaamnimana umaynan dhiman cidna meel kamaynan xoraysan inagoo dhul muslim degan oo dad muslimiina la nool unbaynu islaamnimada dhaxalay waliba aabihii hooyadii buu ka dhaxlay bulshadii uu la joogay buu ka dhaxlay way dhaxleen kuwan ilaahay wuxuu ku tilmaamay inay yihiin warithu hada alkitaab asalkana waxaa la yaqaana qofka bini aadamkaah wuxuu dhididkiisa iyo dheecaankiisa ku bixiyo wuu uga lexe jeclo badan yahay waxa si fudud soo gala xataa dhaqaalaha caadiga ah waxaad adigu ku dhididay si fudud kuma baxaan laakiin xoolaad aabbaha ka dhaxashay inta badan sideska dhallinyarada wixii ay aabahood ka dhaxleen inta badan way waa lagu tuntaa waa la baabi'iyaa laakiin waxaad adigu dhididkaaga ku keentay waxaa laga yaabaa inaad yamxeeriso ilaaliso oo ku xisaabtantid inaanu hore kaga bixin ilaahay kuwan wuxuu yidhi warithuu hada alkitaab way dhaxleen baa la yidhi dhaxal bay kitaabka ku heleen maxaa caada waa markaa ya'khuduuna carada hada aladna wayaquuluuna sayukfaru lana wain yaatihim caradun mithlu ya'khuduuh waa iska dambaabayaan waxay doonaan bay samaynayaan marka la dha warwaseen waxay odhan insha allah ilaahay baa noo dembi dhaafi dabcan ilaahay dembiga ugu dhaafaa laakiin haddana hadday mashkiladu timaadaba ilaahay leeyahy mar kale waa iska qaadanayaan marka amalka war ilaahay baa qafuururaxiima ilaahay baa inoo dhaafiyo iska walaaqda ayay ku wadaan waa maxay kasoo horbaxay islaamnima waa khilaafayaan waxaanay nafta ugu sheekaynayaan ilaahay waa qafuururaxiima ilaahay baa inoo dhaafi laakiin maaha qafuururaxiimnimo intuu rumeeyey wixii ka joogsaday oo leeyahay ilaahay wixii hore hayga dhaafay markaan wadada saxaya wain yaatihim caradun mithlu ya'khuduuh baa ilaahay yidhi tii ku labaadoo la mid a hadday soo martana halkii bay ka wadayaan waa qaadanayaan baa ilaahay yidhi ilaahay markaa wuxuu yihi war kuwan miyaan ballan ilaahay ka qaadin inay de xaqa ku sugnaadaan oo diintan ku sugmaan oo aakhira inay dambayso ogaadaan qola waa nooca qola kalena ilaahay wuxuu yihi waaladiina yumasikuuna bilkitaabi wa aqaamuu asalaata inaa laa nudiicu ajra almuslixiin waaladiina yumasikuun kuwa kitaabka qabqabsanaya baa ilaahay yidhi
مسكه بتضعيفه اللغة العربية يعني وحويان مركز قبقبته وقف آن ربين وحنين وكبح صده حلقة ما دمر كل قبطه يكسي بتوقف عادي ينسكت لكن كان هو قف ربا محي إنه حجسته كوا حجسنا يبا إلى هيدي كتاب كان السلاد أوجية كوا أنا أجر كودا ضيع ما إلى هيدي إذا والله ما مدون إن شاء الله سيغفر لنا وعرفت واسكها جدا أنت الدين وأرمى الدين تورد ما إنه قضان إن شاء الله إنه سيغفر لنا كل السنة كبنا إنه وعلى هذا المذهب قادرنا إنه قادرنا مذهب التمسك بالكتاب إنه حكي سنه جيل كهر الصحابة ده سيدا يقبحين صور يركوبا بما حد كسيني أفرتي السورة ده القرآن كوجه الرئيس ودقة علماء waxay isku waafaqsan yihiin afar suuradood qayba ugu horeeya inay quraanka u soo hordageen waa laga yaabaa riwaayaadka is dhaafinaya afartan say u kala horeeyeen inaad aragto laakiin afartaas inay yihiin afartii ugu horeeyay ayaa badiba culimadu tilmaamaan waa suuratul alaq inta ugu horeysa اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم آيات كوجه الرية وسورة المدثر آيات كوجه الرية يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر وسورة المزمل آيات كوجه الرية يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا آيات كوجه هي سورة القلم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون علماء يراهدان وحيigii koowaad ee nabi maxamed ku bilaabmay wuxuu ahaa wixii aan si fudud loogu sheegin si xoogan loogu sheegay yani dhowr jeer buu jibriil halkan qabto intuu nafta isugu keenay nabiga uu yiri iqra oo nabigu lahaa ma ana bigaari hatta markay naftu ku dhigaadhow sii daayo leeyahay iqra hay علماء يراهدان الأصل في التعليم وإن سفدود الله يسوق الشيء لكن هذه المسألة وحل الربيبي لي في قمة الانتباه والصحوة إن أرنك صوص عضا وحفظود إنان وهينين لسوت شيء ديو أفرت شيء محي شيء يعني وقهر الرأي آيات كان يكور رميان لبس صورة ضد مسألة العلم بيكور رميان اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم هي النون والقلم وما يسطرون هاي علماء يدهدان وحي مسألة تلمامسة بالجهل إن الدين لو حجين كرين يدو جاهل ليي إن وحبل حجين كرين أصل كدين تنا إن كوسا ليسانتاي عرب وقتيgeedii waxa laga yaabaa aqoon dadka ugu dambeeyay inay hay baahiyaha qabtay kale waxa laga yaabaa hadii adiga lagu oran lahaa maxaa lagu islaaxin lahaa cadaalada hal raadiye kana raadiye wax badan oo kale inay tilmaami lahayd laakiin mas'alatu tawxiid wal ilmi bay dhaadaan waa wada socotay asalku wuxuu yahay markaa aqoon ilaahay la barto rusushiisa la barto aakhira la ogaado ilmi baa lagu xijin karaa waa shay koowaad ee laga fahmayo bay dhaadaan شيء قال لبعض اللي فهم أيه آيات كان يوحوا أيام بيليين قفك بني آدم كي أما يسقى الدعوة وضح أما يسقى الدعوة الله وضح أما هذا القرادين إياه هذا سيمي الميوسي صعدة مالين بين مقورنا إياه أما هذا وحرادين إياه جروب كاجي سكوديين تبيرسه هل كاجينات كدقاقين هنا عد صابير سطا هذا سكودية سوقت به الهي وحكم بالهبي يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر كان استودوبا يوبا ليلي كعدين شك ربي قانا وينيه وثيابك فطهر نفطا ضي قلبي قاقي مرضا دي وحا قردن طاهر يال والرجس فهجر حمهنا كهجروت ولا تمنن تستكثر وحاد ودنا إلهي درتي قوت حولا يكون رادين هذا كبت صريها صبيني ولربك فاصبر جدك هداد قادنا مشاكل بعد لكل ميساية صبر وقت كيسال لي يعني وحلقوا بلابا نبي محمد هدينو دانا عليه الصلاة والسلام وابا آيات كلا بعد كسود دقي سيدا علماء بدن قبطه
علمي وجوه الريين طولك واقرأ يا وحجر ريوينا علمي أنت سوهي هذا أنا يدو علمه أنت كوكوبيا وحلا يدي محي مبدأ عفافي مبدأ بلو إذا وحيد هذان خير الدفاع سل يسود الدفاع وحوقف عم بين هذا أدقو وير قشه إن هذا كمرك الوارك الله يدور وكي وذا كيم قدي شيء حقين وقدو أدقو هنا تهاي قفك وحرادين إياه اسكود يدت كينو الراديو لكن إنسانكو ربط التراد بدن لا وما أتكيسته إلا إيانو إلهي حديد دبأ لليمو يعني سوغيت با وحل يري يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا واذكر اسم ربك بكرة أوكي إلهي وحلي كان استوضوب يو كع كيسدد يو بالليل كعو إلهي ستاك marka dhib ku qabsato nolosha caadiga ah hadii adigu aad iska qaadi kari weydo maxaad samaysaa sida normalka bini'aadamka lagu yaqaan waxa weeyaan inuu fakaro asxaabtiisii cid uu xiriir kala lahaa war maanta yaad mushkiladan yaa ku caawin kara mesela problem dhaqaalaha kugu dhacay marka koowaad aad mushkilada xalil kare waxa soconaysa bartalo yaad wax ka soo amaata ama wax ku siiya marka maskaxdaada markaaba waxa ku soo degdegaya midharkii xiriirkii nuu fiicnay ama hanti haystay ama wax ku dhaamay ama caynkana tiraado warbal waxa ama hema inaad wax ka weydiin inaad wax ka heshaba suurtagal qofka muslimka ee dhabta ah markay dhibi ka hor timaado xalka koowaad ee uu raadiyaa waxa weeyaan rabbus samaawaati wal ardi inuu xiriir la sameeyo man biyadihi malakuutu kulli shay إله قعنتي وح ولي بكو جيران الباب كي سيرو قراعه ساوقيت بقى النبي محمد بركي دبتو كهرت بيلاي وحلي يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا كانس دادا يو كانس تضوبا يو كع هبينكي انتي سبضاني يرمو يعني نسكي أما وحير كي يريبا ليل بحال قعي لي إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا بايلاير ورع عصبة الغودي بيا دعوذني الدين كان يا قرآن كان يا سيستم كان ينتقاضى أرين فضود ما هبا إلهي لي ورع عصبة الغسين يا لكن ور كان علصو حقوف فضويين يا وامحي حديد كاد إلهي لا لا كلما حديد كانوا رب لا لأنه ضعيفه اسبدل كانوا لشي إني حق حمي ودقدقية markasta uu xoogaysto xiriirkaad ilaahay la leedahayna xejisadad xejisanaysa diinkaaga iyo waxaagu wuu xoogoobaya idan aayaadkan markaan isku soo daro anigoo raba inaan ra'yi guudun ka tilmaamo koobo waxa weeyaan in wax la barto oo diintaada aan cilmin aad ku sugnaato waayo shubahaadka kama jawaabi kartid ama ma ka noolaan kartid cilmi mooyaane shubhada daliil baa kaa riixi kara هذا الدليل هيسنين واتشبيسا إذن علمين يهي لابد شهوات كنا حديد كاد إلهي لا لا دي بدني دي سريحة إن دي إلهي حديد بدن لا يالط فافنت الدين تنا environment بيكو أبو ريسات كل إحنا ولا كرتيد إن الدين تفافي سيد ومركاسي أتفافي سيد صحابة دي النبي مركا مسائل كاكو أتكايستين noloshu umay fududayn nolol adag bay la kulmeen qaar la torture gareeyo qaar la dilo qaar torture-ka ku dhinta isagoo nabi maxamed arkaya alayhi salaatu wasalaam qaar torture lagu dilo saxaabadiisa kamida qaar sidii loo torture gareynayay iyagoo tii u dambeysay laga sii daayo nooc walba way yeesheen haddana ilaahay wuxuu leeyahay min almu'miniina rijaalun sadaquu maa caahadu allaha calayh faminhum man qadaa naxbah ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا بايلاهيري مؤمنين تو حكمت الرج كرن شيء وحي إلهي وبلغ قادين سو شو قضية الصدق إذا كلمات دين كرن شيء وحي محي بلنا إلهي لقالين فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر باليري وحكمت قار سدا كل انتي يقول شتكي كتاجن يقار سجية وضدا سنة هيا
إلهي مركو صحابة تلمامي وحلقوا تلمامي رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار والركبة إلهي إليه كواسي أنا مشغولين تجارة يا بيع يا وحقدست يا بعمشة لعق حوكسي وما الدنيا حوكسي وأنا كم مشغولين عن ذكر الله إلهي حسكيس وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة صلاة دوغستيدا marar badan waxaa idhahdaa su-aalaha soo noqnoqda had iyo goor waxaa ka mid ah salaada iyo shaqada sheekh dee shaqadii maxaan sameeyaa salaadiiba caynkan salaadiiba cayn waayo shaqada xaggeena muhiima laakiin tan kala agteena ah taqiilka loo raaday shaqada qiil u raadin maysid iyada shaqada waa shaqo waxaa u baahan in qiil loo raadiyaa waa maxay waa salaada iyo saa loo tukanayay إلهينا وحطوا الماما قولة تموح لقصفين يهين رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وايو يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ما لبي كعب سنة يعني ده شقدا اللي غير يرقى على الدرات غير عب سنة لكن قولة وحي كعب سنة يعني ما لن قلبي ده يو قرات كي عنده يوح بقى القلمان cabsida maalinta ka haysa daraadeed mar kasta iyaga waxa priority-ga u leh number 1 ah cibaadadood iyo koowa kan ka waxaan leenahay koow ahlu kitaabkii hore hadday qurbada waxay kaga baxeen baynu kaga bixi karnaa lama sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun walladhina yumassikuna bil kitaabka ku qabsanay waxaynu kaga bixi karnaa baynu leenahay wixii saxaabadii nabi maxamed kaga baxday عليه الصلاة والسلام يا رسول الله محمد يا قرآن كي كواد النبي وكسود دقي سيدو التوجيهية حقه قدري وحنك قبل حكرنا بين لاني مركا اينو قرنو وحينو هيسانا وحينا قم قاننو كقيمة بدني الاعتزاز بالدين يعني ما وحن رادين يا قيمة بدن مسوى حنا استقيمة بني آدم كمركو وحيف سنة يا ما وحقادنا يا واحد وحكور رادي سامحي ده waxa qiimaha badan leenu xagaaga soo maro shay taafiha ma iibsatid waxaan qiimo ku joogeen ama waxa kan ma rabtid nolosha madiinka qiimo badan oo inuu ilaalinaa mise waxyaabaha kale ilaahay waxayna barayeen inuu diinteena muctazin kuwa ku faano xejista maaha kuwa xejiyo qura xejinta waxa laga yaabaa in astiraada ilaali laakiin haddaynu salaadii qabanno وصلاة اسكتوكو لكن دبل مالها أنا لقاركينيو سؤالوا مسخوش ما لقيتو كان كرايو مالها ما لقيتو كان كرايو قاعد جوا وده كرسي بس كيتو كان كرتايا مالها سؤالوا بدين لكن الاعتزاز بالدين هو كده سي دين هذا يند معتزكو تيساد ردد بإلهي وحلي ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون والعزة يا الشرف وحال با إلهي ليه الله يا الرسول كيسيه انت الراعدي منافق وسيما فهم سنة تاسم حيكي انسان يسا صحابة دي دين تهيسي بدبد كان نولش من يتشبينين مثلا تقال الذي هو وينايا صحابة دو قشي وحكام دا حرب القادسية عراق ماشان الله إلى هذا يكوت الله عراق waxaa inteeda badan haystay Persia dawladda Iran ma ka talin jirtay tii caasimadoodii Madain waa Baghdad dhinaceeda kama foga maadaama ay ka talin jireen markii muslimiinta iyo nimankaas Iran-ta majuusiyiinta dagaaladu dhex marayeen dagaaladii ugu waaweynaa waxaa ka mid ah dagaalka Qaadisiya dhowr boqol oo kun oo gaala iyo 30 kun oo saxaaba ay sortaagan iyo intii la socotay saxaabada waxa hogaaminaya عشرة المبشرين كامدة سعد بن أبي وقاص بعيدا كوطا قال هذا كلنا واحد وقامين إن رستم لا يرادو جانا ندودي وويناي لقدم بيه كامدة مركان رستم وحرب بل ما كان منت لسيدي وفكر يعني إنه وقاده وسعد ويديستي إنه أصدره عد وذا هذا البلو نحمره نبى الله دري وسوع عليه متكلم بلي صدر والله ده صدح نبى كل بمدو تجي صدح الصحابي أي كل بمدو تجي مثلا ميت كم يدون هذين سوق عندنا ربعي بن عامر با كم ده
ninkani wuxuu rabay inuu hanjabiyo saxaabada tan oo uu tilmaamo waxaan soo saaray gaaja iyo dhaqaale doon hadday tahay inaan dhaqaale bixiyo marka sariirtii boqortooyada meel la dhigay dabeetana red carpetiska ayaa la waday dhulaad u ballaadhan ninkan muslimiinta ka socda faras yaroo gaaban buu wataa waa nin intaasoo bilood dagaal ku soo jiray dee ninay ka muuqato adduun iyo dhaldhalaalkii maaha rabiya ibnu caamir oo faras yaroo gaaban wataa soo baxay dabeetana markuu soo gaadhay meeshoodii buu iska soo dul eriyey faraskiisii kama degine waxay culamada taariikh sheegaan barkimooyinkii meesha teedsanaa mid ka miduu faraska ku xidha dabeetana uu ka soo dhaadhaco uu xaggu usoo dhaca waxay yidhaahdeen boqorka saan looguma tago hubka dhig boqorka adoo hubsita looma tago wuxuu ku yidhi boqorku isagaa ii yeedhay anigu umaan rabine haddaad rabtaana sidaydan baan ugu tegayaa haddaydan rabinna waa iska noqonaya boqorkii waa loo sheego waxaa la yidhi rustam ninkii wuxuu leeyahay anigu idinkaa ii yeedhay ama maca hubkaygaan gelaya ama waa iska noqonaya soo daaya buu ku yidhi maca hubkiisa soo daaya isagoo wixiisii situu soo galay su-aala baa la weydiiyey markaa maa jaa bikum war maxaa idin keenay ma abaar iyo gaajo iyo dhib iyo balaaya ka soo maxaa idin keenay saxaari uga timaadeen wuxuu ugu jawaabay allahu ibtacathana linukhrija man shaaa min cibaadati alcibaadi ila cibaadati illahi waxdah ومن ضيق الدنيا إلى سعتها ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام إلهي بأن سوى بحيي إن نكسر ردتك عدي ودونه الضوما هيس الضون سنة يانو إلهي الضوما ورقنه وحنوسع النابو لين البنادم كحرينه مخلوق خلينا الضون سنة إلهي يقول إن يدتك الضوما ونقضان ودتك حرية هلان بحنوسع النابو لي عبادة إلهي قاركو النقط waxaanu kala u soconnaa buu yidhi inaanu dadka dunida cidhiidhigeeda ka saaro ballaceeda u saaro haddaba ninkan kaarbatiyada cascas dhigtay carshiga weyn ku fadhiya ayuu wuxuu ku leeyahay cidhiidhigaa kaa saaraya cidhiidhigu waa qalbiga kan adduunku qiimo ulama fadhiyo weyn kaarbatiyadan iyo waxaan ninkan ku fadhiyaa wax weyn oo qiima uma samaynayso waxaa kala fiican cadaaladda iyo maaragtay tawxiidkiisa iyo diintiisa iyo waxaa istaa kala fiican marka wuxuu leeyahay adduunka waa dhib baad ku qabtaaye cidhiidhigan adduun baan kaa bixinayaa waxaan kuu saarayaa maxay ballaca adduunkan ku geynayaa buu leeyahay waxaan kaloo u socdaa buu yidhi diimaha dulmigooda inaan kaa kaxayno islaamka cadaaladiisa kuu saaro yacni mowqifkani wuxuu sawirayaa ninka kani walow uu meeshan nin ka xoolo badan oo ka بدبرك الدنيا كفي عنه تاجن يهي إنه معتز بالدين يهي دين تسوى حولي كان تاينا وتشيرين إنه الروميسية تسوى كان سنة نقف كان الدين تسوى لا شده إلهي وحنا وحين لا حتى هدي سيدا كرونا الله يدين كحقبته ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين ورها اللي دنينا بقى ليلوها مروانينا إذن كقرية هدي إيمان وتشيروه داد ربيسان تاي ربي جاي كحولان تاي هذا كوريا صلى الله عليه وسلم المامنو وصحابة غير مكاها يا نبي محمد عليه الصلاة والسلام ربي يسوي مغدينا ان مركي بيت المقدس مسلمين تاي فرتين بيت المقدس نيكا فرنا عيدا كاسنا نيكا 10 المبشرين هو قامني عبيدة بن الجراح يا عيد مدوتي دبتنا qoladii masiixiyiinta meesha joogtay waxay yidhaahdeen sharti ah furaha sulxi baanu gelaynaa saasaananu idinkula heshiinaynaa laakiin furaha wuxuun baanu u dhiibaynaa amiirulmu'miniinkiinu ha yimaado isagaanu furaha ku wareejinaynaa sidii buu ku soo baxay abu cubayda cumar buu la hadlay wuxuu yidhi nimankii saasay yidhaahdeen dee haddaad noo iman karaysa kaale cumar wuu soo baxay وعرب فريه بيت المقدس إنه لو ريجو ماشنا يسقى فرها لو ديبو معاهدة دي لقالينا سداسي أيكو هركش وسوس عليه مركو ماشي ينيرو سوتشري أيو حصامر يدول دير يورب هلا يورب مدنا دبتنا دابدي وفوشنين تعمر كدا دقي والله بدي كبودنا الله بحي أيو الله بدي كبودنا هلكم كسوقات نيف كيسينا سوه قامي لو بدي ناس كسر حصادي أبا عبيدة يا عيد مدي مسلمين ترقي سودا وين يا كهريمو أبا عبيدة وحولي عمرو ما تشعلن ما يصرني أن أهل البلد استشرفوك
xadiidka xaakim warinayo magaalada dadkeedii iyo madaxdeedii inay ku arkaan sidan adigoo ninkan faydan ee cagaa dhoobada kule ah in lagu arko maan jecli buu leeyahy cumar eraygii wuu dhibsaday adiga cidan awah low yaqul hada gayruk buu yidhi abaa cubayda waxaan jeclaan lahaa midaan adiga ahayn inuu yidhahdo abaa cubayda adiga waa kaa xishoonaya buu leeyay laakiin waan ciqaabi lahaa nin kaloo aan adiga ahayn inuu yahay marka waa ka xumay buu leeyahy low gayruka qaalaha mid aan adiga ahayn mu warkaasi ka soo baxa buu leeyahy dabeetana cumar wuxuu dib ugu noqday taariikhdoodii abaa cubaydaba waa ogiyey laakiin wuxuu yaro raboon isagoo amiirulmu'miniin kuu muuqda amiirulmu'miniin xagga dharka iyo haybadda inuu meesha yimaado laakiin cumar wuxuu ku leeyahay waxaanu ahayn inaa kunaa adalla qowmin dad aada u dullaysan baanu ahayn ilaahay diintan buu nagu ciseeyo dad nagaga dhigay buu leeyay markaanu carab ahayna dhulkaygii joognay dad dullaysan baanu ahaan jirnay laakiin ilaahay wuxuu nagu ciseeyo nagu sharfay diinta tan haddaanu ka raadina buu leeyahay sharafta meel aan diintayada ahayn ilaahay waa na dullaynaya ilaahay diin buu nagu sharfaye waxaan diin ahayn haddaanu sharaf ka raadina waa dulloobaynaa maxaynu uga dan leenahay waxaynu uga dan leehay qofku muctaz bidiinihi inuu rumaysnaado in wax ka maqan yihiin inaanu ogeyn bidhbidhkan adduunya inaanu qiimo badan ku lahayn taasi waxay keensanaysaa inuu diintiisa xoog u xejisto ilaahay isagoo nebi maxamed la hadlaya calayhi salaatu wasalaam ومن ورائه صحابة الله هذا يا وحليلي فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون إلهي وحولي حجسو فاستمسك بالذي أوحي إليك وحي لغوسو وحي يضي حجسو وايو جد صحابات كسوغان تيبا إلهي لي جد قمان بات كتاغانتي وإنه لذكر لك ولقومك قرآن كاسية وحي جاية دين تالو سودة شينا شرف بوكوية هي أديك يطلق بابا إلهي لي إلهي نويدين ويدين دونا مركا وحي قال السنين ننسي السنين محي وحليته من كان يريد العزة فلله العزة جميعا الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا waxay leenahay shayga koowaad waxa weeyaan inaynu qurbadan kaga baxno wixii ahlu kitaabkii hore ilaahay ku tilmaamay inay kaga baxayeen inaynu kaga baxno wixii saxaabadii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam kaga baxday inaynu muctaz ku ahaano dad ku faanaya oo aan qarsanaynin diinta tan inaynu naqaano wixii inala kulmo markaa markaynu waxaan sheegayna macnaheedu ma aha nolosha dhan ba iska fududaanayso gaal ku dhibi maayo nolosha wax maya system dhan oo dhisan oo waxaan ka soo horjeedaynu nimi laabud min tadxiya waa laabud in culays kaa hor imanayo challenges ay jiraan oo dhib ay jirto laakiin waa maxay taxadiyaadka in geesinimo iyo sabir lagala hortago geesinimadu goob dagaalo qura maahe geesinimada adabiga ah baa ka roon كلمة الحق إناد مركز تكون دواغ كرتو وحاجة إناد موجسن كرتو إناد كل رنت هاي مبادئ دا إناد حجسن كرتو ولذلك بقى إلى هاي غير بنو إسرائيل كي هجاجي وحولي وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون وركوا إيمانك لقاها ليوبا إلى هاي الصبر والله الصبر نكتبال ليه مشاكل كوكو بدن دونايو وبني آدم وحن كلو إذن كهر إيمانا ياي يأيدن كصبر بدن نبا إلى هاي ليه ورابطوا في ثغوركم قوابها أتكو جرتان إنو فيسيدين نحي جسته إلهنا كعب صدا وقوليسن دون تنبا إلى هاي ليه سبحانه وتعالى انت كدب حينو باهرنا هاي نوع من الحكمة نوع من الحنكة نوع من اللباقة نوع من الرفق يدوم مبادئ كو حكي سنينو هدنا انت اينو سف ضد وحوة كرنين انو وضنو marka qofka la yiraahdo diintaada xijisa dadka barba u fahmaan cunfi iyo dagaal iyo qalafsani iyo insida maqiiq meel kasta kala hortag sidaasna ma sax maaha waxaagay hayso xijiso
لكن ده مرتاته سلوبنا ونولو يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولي الألباب. عائشة أيها وحي شيء حديث الشيخين كورين أيان ولا النبي قوت من يقعد يكو تشيس أيها عاية رأسا وحي كويل هذا السلام عليكم. السلام لام كان لقبه ذي لكن وحلا اسكردك يدي اللي يري السلام عليكم. السلام عليكم وقيري كركا قهات وهبار. السلام عليكم نوا ربها كحفديو نبتقلي وانا كركا قهات. السلام عليكم نوا موت يقيري بلايو كركا قهات. دبتنا عايشة انت عروتي مركبة وحي تري بل وعليكم السلام واللعمة إذنك عرض اللي يقريد سينا عدشي وكوركي إن إذنك ها طبيتي نبي عليه الصلاة والسلام isagoo kuwana maqlaya wixii ay yiraahdeen Aishana maqlaya waxay tiri ayuu Aisha hadana tala siinaya wuxuu leeyahay Aisha inna Allaha rafiiqun yuhibbu ar-rifqa fil amri kulli. Aisha ilaahay waa rafiiq waa ku si dabacsan dadka u dhimriya yuhibbu ar-rifqa fi wax walbana in si dhimrisan loo sameeyo ayaa alla jecel yahay subhanahu wa ta'ala. Aisha waxay mooday nabigu inaanu maqlin malaa dhimirtani waa warkiibaanu maqlina aw lam tasma' ma qaal waxay ku hadlayeen miyaad maqal ilaahi rasuulkiisiyo qad qultu wa alaykum nabigu wa maqlay yani wa alaykum bana dhaw soo gaabi waxaan uga dan leenahay xadiidka riwaayada imaam muslim waxay tilmaamaysaa in allaha ta'ala rafiiqun yuhibbu ar-rifqa wa yu'ti 'ala ar-rifqi ma la yu'ti 'ala al-'unfi wa ma la yu'ti 'ala ma siwaa. رواية كلام إمام مسلم ورينا الرجال يدنا وحي شيء عليك بالرفق وإياك والعنف والفحش إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا شانه. حنقدر لنا يوم عقيدة دينية مبادئ دينية أخلاق دينية دقن كنا دمان تودان حج سنه تام معناه هذا اللي ما فهم أيه عنف أيه المشاكل كلام أبور اللي ما فهم أيه وحلا فهم أيه إنه عقيدة الإسلامية هي دقة إسلامية نقاد الموضوع قضية كلام تلمامة يوحويا وإن نكلا قرنا محن قاضنا إن محن كتجينا وإن نكلا قرنا مينو ميد مينا وينو بابا إن ذوبان مسي اندماج هالكن مركز شوكتان ريال الله يدين شرح الله يدها محي assimilation iyo integration dadka barbay yiraahdaan geed toobay galaan qaarna way assimilate gareeyaan qaarna waa u dhaxeeyaan oo waxay galaan maxay integration geedtoog waa intaad meel isku qafilso xira yareeda wax walba may tiraahdo taa de adigu bay ka suurtagal tahay yararkaaga iyo islaamaaga waxaaga kan kama suurtagalaha in aad de meel isku qafili kareysana kaagi baa ku roonaa inaad isku qafisho waarad xaggan u soo bixin ku darsan kuna dewa adoo dhintay oo iska milanku waxa soo haray waxa iyaguna inagu wacdiyaan inaan u baahnay inaan fahamno la yiraahdo integration meel walba waxa la leeyahay integration politicians iyo nimanka siyaasiyiintii bulsho kasto homogeneous way ka fududay bulshada kala gedisan en tacaddudku iyo noocyadka kala gedisan waxyaabo qaar kood way ku fiican yihiin laakiin siyaasiga uma fiicna. Siyaasigu wuxuu jecel yahay dad isu aragtiyo isku dhan u jeedo dhan qura wada kaxeeyo laakiin dad geesale waa ku yara dhib badan tahay marka iyagu integrationka ay sheegaan inta badan saas u badan yihiin laakiin adigu inaad integrateto waa sax laakiin laba weerood waa inaanu kala garanaa ما الفرق بين التبعية والاستفادة بين التقليد والعلم حول حياة إنه دميردان راعي نقولنا كودا إنه أو حول بكاء قاعدنا إنه وحكفة إدنا أقولنا ككررسنا وين بقول حياة وحي وحنفعية يعني دين هذا كهري ما إنه كقاعدنا ويا لكن مسائل كعقائد يا دين يا أخلاقيات كني عبادات كني وحين إنه كتنازل معها إنه كتنازل معها بركوا إنه كلا جرنا نبي عليه الصلاة والسلام وحط المامية إنه يدعي دونته لا تتبعون سنن أو سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع وحراعي دونته أبو النبي يقولي
wadooyinkii dadkii idinka horreeyay taaka iyo dhudhudhudhun saxaabadii damintidka ahayd ee wax iska soo dhicisay ee dhulka xoraysatay ee caynkana buu warkaa ku leeyay markaasuu nebigu wuxuu yihi weliba xataa low dakhaluu juxra dabbin latabictumuuh aw la dakhaltumuuh xataa hadday godmasa lugalay godmasa cagalay hadday galaan waa ka dabagelaysaan buu nebigu yidhi markaasa waxay dhahay yaa rasuula allahi alyahuuda wanasaara ma yahuud ya nasaara qaala faman yaa kale buu nebigu yidhi yaa kale maalin kaleo haddana nebigu wuxuu yidhi xadiidkan oo kale sunana man qablikum baa raaci doontaan markaase waxay dhahay alruuma walfurs ma romanska iyo bershianka yaa kale buu nebigu ku yidhi ibnu xajar raxmatullaahi caleyh markuu labada xadiis ba fasiraya wuxuu leeyahay wixii siyaasad dawliya iyo baabkaa ku saabsanna waddada romanska iyo bershianka ayaa raaci doontaan hadday noqoto bidca iyo diin abuurka iyo waxaan kalena waxaad raacaysaan maxay alyahuuda wanasaara idan asalku muxuu xadiidkani inoo tilmaamayaa wuxuu inoo tilmaamaya qofka muslimka ahi wuxuu kaga soocan yahay inuu garto yahuudiya nasaare muxuu kaga soocan yahay romanis iyo bershian muxuu kaga soocan yahay mabaadi iyo caqaa'id iyo diin baad kaga soocan tahay maxaa wada leediin tajaarib alinsaaniya wixii ka tirsan bini aadamku wixii experience-ku ku dhaxlay aqoontan la sheegayo dhaminteeda badani waa maxay waa tajaaribtii bini aadamku uu kala dhaxlay idan waxaynu qaadanayno iyo waxaynu ka tegayno inaynu garanno ilaahay markuu qur-aan ka warramayo ambiya ilaahay ka warramay في سورة مريم بان رجينيها أنبياء إلهي كورمي نبي هبل مركي أنبياء الله كورمي أي إلهي اسكو الصوت دوبا وحولي أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا كواسي با إلهي وكوي إلهي النعمي ذرية نبي آدم يكوي نبي نوح نبي إبراهيم يا نبي إسرائيل وحي دلان أنت أنو هنوني نبي إلهي لي إلهي آيات كي سبرك مقلان وخضوعان وسجودا لكن جروب كان نبي هذا كبحسن با إلهي طلبا بهذا فخلف من بعدهم خلف جروب بقوة ضبا مريبا إلهي لي وهو ضدو دي كوعد محي سمايه أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلغون غيا صلاة يضيعين شهوات نفسي وحي ربطي اسكر راعين كواسي نارتي قليا بالغوت الماما محان وقدون لنا مركا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا وحنو دان لنا لنا حي وإن نقرنا وحاينو هاي سنينو وإن نقرنا تجاربتي هوري إلهي وحنوت الماما يدول وحي للربي إني كتغان mooye wixii la rabay inay xijistaan ka dhacay oo maxaa ka mid ah مثلا ilaahay wuxuu tilmaamay watlu calayhim naba alladii aataynahu aayaatina fansalakha minha faatbacahu shaytaanu fakana min alghaawiin waxaad dadka ku akhridaa baa ilaahay yidhi warkii kii aanu aayaadka siinay mid diin garanayuu ahaa maxaa ku dhacay fansalakh waa ka siibmay baa ilaahay yidhi dabeetana shaydaan iyo gruubkaasuu ku biiray kaa ilaahay markuu tilmaamay waxaa la yidhi famathaluhu ilaahay wuxuu markuu soo tilmaamay haddii ilaahay doonayo qofkani de qof sugan buu noqon lahaa waa kaa la soo sheegay waxaa la yidhi famathaluhu kamathali lkalbi in taxmil calayhi yalhath aw tatruku yalhath kaa tusaalihiisu eygu buu la mid yahay baa la yidhi eyga haddii la eryana carabka waa laalaadiyaa hadduu iska fadhiyana carabka waa laalaadiyaa xoolaha kale sidaa maaha xoolaha kale markay kulayl iyo waxaa dareemaan bay harariyoodaan markay se nabad qabaan dee ma harariyoodaan eygu laakiin mar kastaba isagoo carab laala kan waxa weeyaan hadday diin loo sheegay haddaan loo sheegin waa isku mid ilaan marka horeba diin buu hayo uu ka baxay waa kitaab xoor dee wadaad quri kitaab xoor maaha haddaynu wadadaa wada cararo dadku waa wada kitaab xoor buu noqonaya ninba intuu hayuunbuu xoorayahay nin salaad xoora iyo nin inka durugsan xooraba ninba intuu hayuu xooraya waxaa kaloo ilaahay qur-aanka inoogu sheegaya shaytaanko qura maaha dad mutarabisiinana inay wadada fadhiyaan dad ugaadhsi taga oo jecel inay naga saaraan ilaahay wuxuu leeyahy wadda kathiirun min ahli lkitaabi
لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. إن بدنوا أهل الكتاب كمدي waxay jecel yihiin baa ilaahay yidhi inay diintan idinka bixiyaan iimaanka dabadiina gaalnimo idiin celiyaan weliba iyagoo xaq u cad yahay maray wax garteen xaasidnimo daraaddeed baa ilaahay yidhi